xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu caleema saarayay caaqil cusub oo ay yeelatay beesha bihii tarays caaqil maxamed ciise sugule birya xafladda caleema saarka caaqil maxamed ciise sugule birya waxa ay ka dhacday degmada Awrbogays ee gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay wafuud ka kooban cuqaal siyaasiyiin dhalinyarada hidaha iyo dhaqanka wafuudan oo ka kala timi gobolada dalka ugu horeyna waxaa hadalka qaatay oday Cabdirasaaq Maxamuud Bila Dalmar waxaana uu Cabdirasaaq Maxamuud Bila Dalmar ilaahay kala siiyo shirkooda laga duub halkan xafladan maanta aan shurayna maxamed ciise sugule waxaan ugu shuraynaa caana ilaahay iyo ubadkiisa ilaahay iyo inta Soomaalida islaamka ay joogtaan ugu shuraynaa kaasaan waxaan ugu shuraynaa beesha la yidhaahdo bihii tarays caaqil bihii tarays meel kasta baa joogto daliya dibaddeed inta areeraha ka timi hawshaan loogu timi iyaduna way ku mahadsan tahay waxaan leeyahay ilaahay khayr ilaahay isku xidhan laga siiyo ilaahay fidmada wixii fidmo wada iyo wixii duca wada ilaahay hana iga dhex saaro insha allah kii isku kaaya xidhi lahaa baanu ka rajo qabnaa inuu noqdo meel kasta wala joogo ugu daraya maxamed sugule maxamed ciise sugule maanta laga bilaabo waa caaqilkii bihii tarays waa caaqilkii daarood iyo isaaqba mid kastaba in kasta ka gaadhee naaficeeda ay ka heli lahayd annana waa la shaqaynaynaa waan la shaqaynaa caaqilka waxaan leeyahay ka ku doortay iyo ka aan ku dooran intaba caaqil baa u tahay dadweynaha sharafta leh mudawooyin iyo mudanayaal iyo mudawooyinba waxaan ku salaamayaa salaada muslimka waxaan ilaahay ka baryayaa caashubka sharafta leh ummadda faraha badan ay ka soo qayb gashay sharkeeda ilaahay inuu naga nabadgeliyo khayrkeedana ina siiyo dadweynaha halkan isugu yimi waxay ka kooban yihiin gobolka Sool iyo Sanaag dadkii ku noolaa weeyay inta u dhaxaysa maxamed ciise sugule biryar ku caano shubayno waxaan taariikhdan u sheegayaa dadka bihii tarays waa caaqilkii ugu horreeyey ee lagu caano shubo ee maxfalkaas oo kale loo qabto yaad baan ugu mahadcelinaynaa كذلك هاي التوجه حتى تغشيان وديها وراد الله وشاي يعني انت واحد وقت بياع عاقلك محمد عيسى سجل برجر ما تاجا كدعي توحد اللي يادو اللي سكوجيني بيشان أو يوتمنات سو تمنات تبيه تمكي laga bilaabo waa caaqilkii bihii tarays maxamed ciise sugule birya inaynu u doorano nabadoon yaalayaxmi nabadoon bihii tarays wuxuu xukumaa jiidali iyo kutarad inta u dhaxaysa in badan buu bannaanaa oo dhaxan iyo dabayl naga soo dhacasay nabadoonkii hore u dhintay waxaa dhacayay tusiismayaal aan lagu caano shubin ugaaryahan waa ku maalay waa doorannay waa taakulaynay tadaawaraska iyo tadhegaysadasa iyo tayaarkasta anaa garaadkaa maxaa ciise sugule waanu doorano nabadoon bihii taraysaa gabadhna waan xiriirka waa u dirayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi waana nin deeq badan waana nin deesiya dardaarmaya markaa la sii dardaarmaya wixii uu leeyahay ayaan gaar ahaan ugu sheegaya ma belbelo qorigu keligii ma belbelo kelkaasi wuxuu saaran yahay ugu dambeyntiina waxaa hadalka qaatay caaqilka cusub maxamed ciise sugule biryar isaga oo u mahad celiyay dhammaanba wafuudii ka soo qayb gashay xafladda caleema saarka waxaana uu ballan ku qaaday in uu sinaan iyo cadaalad ku shaqayn doono cadaaladda waxa la yidhaahdana wax la yidhi tirada naga keenay
rag cadaalad waaye sida hawsha kale waxaa la yidhi سنان كذا شقيو مدلمو قف ولا حقوق ولا يلاقوا هرو عبد الله محمد كارشة عبد الله ياسد تي في قرن كسومالي لان أو ربوعي